sugano barwaaqo ku soor Somaliland walla kuma siista saami kale sunno calayo dusha sare oo sare abid wanaaga sido walla kuma siista saami kale sunno calayo dusha sare oo sare abid wanaaga sido loogusiyaad nabada sugano barwaaqo ku soor Somaliland loogusiyaad nabada sugano barwaaqo ku soor Somaliland بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داوديال وكورجلك حالة caafimaad waxbarasho iyo daryeel ee wasaaradaha hay'adaha dawladdu ay mas'uulka ka yihiin ayaa ah mid bulshada ay Somaliland uga fadhido hay'adaha iyo dawladda loo xil saaray wasaaradda caafimaadku ka duuleysa siyaasadda qaranka ee kurgalka xaaladda caafimaad ee gobolada fogfog ee bariga Somaliland ayuu wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. saleebaan ciise axmed xaglatoosiye iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo ay ka mid yihiin xubno wasiir dawlayaal agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda caafimaadku kormeerkoodii shaqo markay kaga baxeen magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxay u hayaameen wafdigu magaalada carmaale oo koonfur bari 80 kiiloomitir ka xigta xarunta gobolka Sanaag ee ceerigaabo wafdiga uu hogaaminayay wasiirku markay u anbabaxeen deegaanka carmaale ay waxay sii mareen degmada biyo guduud oo uu ku yaalo saldhigga saddexaad ee ciidanka qaranka Somaliland iyadoo wafdiga wasiirada ay salaan ka qaateen cutubyada ciidamada qaranka ee deegaanka ku sugan wasiir halka waxa kuugu diyaara ciidanka ciidanka qaranka jumuuriyada Somaliland saldhigga saddexaad ee guutada waa wasiir isku soo dhaw mudan duleedka deegaanka carmaale ay wafdiga ku soo dhaweeyeen madaxda degmada oday dhaqameed iyo bulshada ku dhaqan deegaankaas oo caleemo qoyan ku soo dhaweeyay wafdiga u kuurgalayay xaaladda caafimaad iyo xaaladda nabadgelyo iyo xaaladda guud ee deegaankaasi uu ku sugan yahay wasiirka ayaa warbixin ka dhageystay madaxda degmada taliska ciidanka ee deegaanka ku yaala iyo mas'uuliyiinta degmadaas iyadoo warbixin dheer oo ay wafdiga siiyeen dadka deegaanka ku dhaqan iyo madaxda degmaduba uu wasiirku dhagax dhigay xarun caafimaad oo degmadaas ay yeelan doonto ahna arrin guula oo dhinaca caafimaadka uga soo hooyatay bulshada ku dhaqan deegaanka carmaale barnaamijkan ayaanu ku iftiiminaa kurgalka xaaladda caafimaad ee wafdiga uu hogaaminayo wasiirka caafimaadku ay ku tageen guud ahaanba deegaanada koonfur bari ee gobolka Sanaag marshadka qiimaha kale oo kala duwan wax ku salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa maanta musharraf inoo ah oo taariikh ah dawladda guuraysa oo nagu timi mandaqadana carmaale waxa ku soo dhaweynaa gacmo furan iyo laab furan waxa leenahay ku soo dhawaada dalkii waxa ku soo dhaweynayaa guddiga odayaasha carmaale daar xuseen farid fadal mashkuuran اللهم صل على محمد waxaan aniga magacayga uu halka laga sheegay daar xuseen cilmi waxaan soo dhaweynayaa wafdiga inoo timi dhammaan haddaanu nahay madaqada carmaale aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waan ugu kalsoonahay si nabadgelyo ah si dadnimo ah si mid walba waa ku soo dhaweynaynaa wixii haa iyo wixii talaa iyo wixii qorshaa iyo wixii nidaamana dib baynu isu ka sheegayna
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هور بدني هالكن ميال malaha intii kaftanka ahaydna waxay yidhi cabdirashiid sidaa hore loogu sheegay waxaan hore ku soo dhaweynaynaa madaxda qaranka oo sharafta leh oo maanta soo booqatay magaalada carmaale waxaanu leenahay mudanayaal soo dhawaada waa carmaale waa magaaladiinnii sidii cabdirashiid uu sheegay waxay waa sidaan waxana hore u yiileeno waa isla sii arki doonaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحيلتها يسودوين iyo talabixin iyo gabay intii hore waxay yiri dadkii horeeyay yiri waxaan leenahay soo dhawaada waa gurigiinii waa mantaqadiinii waa halkaad wasiirada u haydeen waa halkaad gudoomiyaha u haydeen waa halkaad taliyayaasha u haydeen waa halkaad xildhibaanada u haydeen weeyaan waxaan leenahay ku soo dhawaada oo mar labaad iyo mar saddexaad baa leenahay waxaan leenahay khaarijul mawduuc ka hadli bayno waxaynu ka hadlaynaa degmadu halkan tuuladu waxay u baahan tahay waxqabadkay sugaysana waxay ka sugaysaa wasiiradeeda iyo gudoomiyeyaasheeda iyo taliyayaasheeda iyo xildhibaanadeeday ka sugaysaa iyo mantaqada wixii allaale wixii ka damqanaya waxay sugaysaa waxqabad la taabtay sugaysaa waxqabadka la taabto marka aan ka warbixinno waxqabad la taabto waxa qabsoomay wasaaradda waxbarashada iskuulkan waa la dhisay kaa kale sekondariga waa la dhisay waxbarashadu waa taabagasha weeyaan macallimiinta laftooda waa la shaqaaleeyey ardayda laftooda waa iyaga laftoodu dee waa maasha Allah waa aragtaray horta qodobka waxbarashadu aad iyo aad uga taabagalay waxaan nooga mahad celinaynaa marka ugu horeysana dee jumuuriyada Somaliland nooga mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashadana waa uga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol waxaanu leenahay waa ku mahadsan yihiin waxna waa u dhiman yihiin iyaga laftooda taasi waa ta kale waxaan leenahay sida islaamtu sheegtay way xagga ciidamada qarankana iyada lafteedu waa ka taabagashay oo iyada lafteeda xeriyihii iyo ciidankii iyo dareyskiina waa idin muuqda iyadana waa ka taabagalay kow taasina waa waxa dhiman adeega bulshada markaan ku soo dhawaano oo asalka ahaa waxa ka qabsoomay waa waxbarashada kaliya caafimaadka markaan ku soo dhawaano wasaaradda caafimaadku wax allaale iyo waxay ka qabatay ma jirto maanta waxaan ku mahadnaqaynaa mar haddii wasiirkii caafimaadku yimi oo uu maanta uu ina hor fadhiyo kuna cusub yahay mantaqada waxaan u malaynayaa inay mantaqadan waxqabadkiisa la kowsan doonto insha Allah taala waxa weeye mantaqada waxa ku nool dad danyara waxa ku nool dad aan awoodi karin inay ama dhakhtar aadaan ama ay xataa group ay mataqaanaa first aid ka degdega aanay awoodi karin weeye kama jirto tababar male umuliso male nurse male auxiliary male wax allaale waxa ay leedahay oo mantaqadaasi leedahay waxa weeye ma jirto weeyaan waxa markii wax iska dhacaan waxa laga yaabaa qofka inta la siiso ceerigaabo loo siiso qofka inay naftu ka baxdaaba ama inta gabdhaha inta ugu badan gabdhuhu ay ama inta labada wadada u dhaxaysa ay ku umul arooraan weeyaan oo ay isku dhintaan weeyaan marka waxaan leenahay ilaah baa wax badbaadiye badbaadada wasaaradda caafimaadka waxaan ka rabnaa maanta oo ay maayarka iyo wasiir cadami iyo barasaabka iyo intuba xogogaal bay yihiin iyo xildhibaanaduba waxaan leenahay maanta waa aragtaa indhahaaga ku macallina indhihiina idin macallina waxaan ula hadlayaa horta baahida koowaad ee jirtaan ka hadlaynaa biyaha markaan ka warramo biyaha waxaa jira ceelka waxaa la qoday dhowaan hay'ad baa qortay la yiraahdo manhal ceelkaas hadda dhowr sanadood waa jiray waa ceel qaraadh biyaha qaraadh baa laga cabaa xooluhuna biyaha qaraadh bay hayaan halkana waxay koobsataa ilaa dhowr iyo 10 tuulo ayaa hareeraha ka xiga mid xagga ka xigta mid xagga ka xigta mid xagga ka xigta tuulada aad aragteen iyo bulshada aad aragteen oo oomani iyada lafteeda cid baa wax bidawi caafimaad baa la bidaa dhaqaalaha la bidaa ra'yi baa la bidaa
maamul ahaan baa la bilaabo waayo markay ma ka dhacdo wax ka dhacaan tuulada ku xigta askartan iyo ciidankana loo yimaado la yiraahdo waxa laga qabto weeye waxaan leenahay waxaynu u baahannahay oo aanu maanta idinka sugaynaa inaad wax nagala qabataan baahiyaadka jira weeyaan bulshada qayb badan baa haghaga ku jirta annaga haghaga naguma jirto waxaanu nahay somaliland shacabka iyagaad aragteen soo dhaweynta iyadaad aragteen waxa weeye annagu waxay la tahay ninka dee somaliland isagu dhammaystiran iyo ka haafhaafka ah waxaan u maleeyaa horta balka somaliland dhamayska tira baynu horta dhammaystiranaa isaga laftiisa baahiyaadkiisa dhammaystiranaa waxaan eegaynaa maanta codkaydi ka soo baxa waxbaan ku qaybsanaynaa ilaa xalay waa soo jeednay waxaan u soo jeednay odayaasha soo dhawayntooda iyo martigelintooda waxaanu ku talagalnay inaanu maanta annagu casumaadda iyo qadada iyo soo dhawayntaba yeelano laakiinse markii la leeyahay tuulada lagu xigto xaggana baanu isdii labadaba isku darsanine laftooda dee jaaniska wax ka siiya laftooda taana waa leenahay hadalku dee waa soo koobaynaa baahidaasaa jirta cabdirashiid baa ka hadla wuxuu yidhi dhagaxayna ka ilaasho oo xagga dhagaxa waxay la tahay waa iyaga laftooda odayaashu mid la saaro wa imane mid ay dhigaan ba yimaadeen weliba khayr qaba mid kalena waa ku darsanayaayo xagga booliiska magaalada booliis male askari male saldhigna male taliyaha booliiska laftiisu khayr allaha siiye dacweyn mayno waxaanu leenahay socodkiisu meesha kuma badna mana iman welina ma arag isaga waxaan leenahay siciid carab ma jooga siciid carab baa maanta alla tusay waxay la tahay ka dambana way iska iman doonaa khayr allaha siiyo saas waxaan leenahay soo dhawaada waxay u baahan tahay booliis waxay u baahan tahay caafimaad waxbarashadii waa idiin sheegnay iyadu maasha allah weeyaan ka abaal ka dhici mayno qofku inta jirto waa inuu sheegaa inta ka dhimanna waa inuu sheegaa wabilaahi tawfiiq waxaan ku xijinaa madaxa daryeelka caafimaadka sidii famaashka dheeriga inoo siiyo maxamed gure ku soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan maanta haddaan nahay shacab weynaha ku dhaqan magaalada carmaale noo sharafa mudanayaal inaad noogu timaadaan oo nagu soo boqotaan safarkan yaroo gaaban aad noogu timaadaan aad iyo aad baa sida odayaashii hore mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad binu soo dhaweynana wey intaa kadib waxaan doonayaa inaan warbixin yaroo kooban oo information dheeraad ah ka bixiyo xagga caafimaadka maadaama aanu nahay shaqaalihii caafimaadka halkan ka tirsanaa waxaan markaa warbixintaa usoo jeedinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka saleebaan axmed waxaan leenahay mudane wasiir halkan magaalada carmaale aad maanta timi waa magaalada ay ka soo warbixiyeen odayaashu ay sheegeen waxaa ku dhaqan population aad u fara badan oo ah يعني إلى 600 قيس marka laga reebo waliba reer guraaga hadii reer guraaga lagu darano waxay gaaraysaa ilaa 1000 iyo abaf dadka ku dhaqanay iyadoo nooca tahay population ka la ku nool yahay aad bay uga dayacan tahay uga liidataa uga hooseysa xagga caafimaad wax diro caafimaad haysta ma jirto ma laha ruuc caafimaad MCH ma laha halkan dawaa goobta waxbarasho iskuulkii isagaan ku geeyay ku soo dhaweeyay haduu jiro MCH ama goob caafimaad xarunta hadiya goob waxbarashada heerka marsid waa laga hukumay wax daryeel oo caafimaad oo haysta ma jirto waxa kale oo wasaaradda caafimaadka naga soo gaara 3 bilood kid yar oo dawo ah oo isaguna aan yani waxa weey lagu la tacaali karin xaaladaha adag ee marmar soo wajaha